الرحمن الرحيم وعنو wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa 18 Maarso 2026 qodobada qaybtan aan idinku haynana waxa kamid ah macluumaadka ku saabsan weerarada Iran oo u muuqdo kuwa sare loo qaaday ayaa saameyn ku yeeshay adeegyada tareenada ee dadweynaha ee Israa'iil ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo sheegay inay howlgal ku beegsadeen boqol bartilmaameed oo ku yaala gudaha Israa'iil Ali Larijani oo ah madaxii amniga qaranka ee dawladda Iran ayaa aasqan loogu sameeyay magaalada Tehran ee dalka Iran dhinaca kale warbixin sirdoon oo ay baahisay dawladda Iran ayaa lagu sheegay in lagu dilay in la shaqeynayay hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad qodobo kale ayaa raaci doona aynu ku bilownay hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 45 milyan oo qof oo dheeraad ah ay wajahayaan xaalad macluul daran haddii dagaalka Iran uu sii socdo ilaa bisha June hay'adda waxa ay sidoo kale xustay tirada dadka hadda dunida oo dhan la ildaran gaajo inay gaarayso 319 milyan oo qof taa oo heerkii ugu sareysay ee abil diiwaan geliyay sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka madaxa ee WFP saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda caafimaadka Israa'iil ayaa lagu sheegay in 192 qof ay ku dhaawacmeen loona qaaday isbitaalada 24 saac ee la soo dhaafay wasaaraddu waxa ay sheegtay in afar kamid ah dhaawacyadaas ay xaaladoodu tahay mid dhexdhexaad ah 177 qof oo lagu daaweynayo dhaawacyaduna ay yihiin kuwa fudud lama cadeynin xaaladda 11 qof ee kale waxa ay sidoo kale intaas ku dartay in tan iyo bilowgii colaadda guud ahaan 3727 qof la dhigay isbitaalada halka dad badan ay aaminsan yihiin in tirada ay sheegtay wasaaradda ay aad uga hooseyso guud ahaan dadka ku dhintay ee Israa'iiliyiinta dagaalka u dhaxeeya Israa'iil Mareykanka oo dhinac iyo Iran oo dhinaca kale ah warbaahinta Iran ayaa sheegtay in lagu tuhmay jaajuus u shaqeeya Israa'iil maanta lagu diray ninkan oo lagu magacaabo Krosh Kayfini ayaa lagu xiray intii lagu gudu jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee u dhaxeeyay Iran iyo Israa'iil bishii June 2025 waxaa lagu eedeeyay in uu gudbinayo sawirro iyo macluumaad ku saabsan goobaha xasaasiga ee dalkaas hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad sida lagu sheegay warbixinta ay daabacday wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency oo xiriir la leh ciidanka kacaanka Iran warbixintu waxa ay sheegtay in Kayfini markii hore ay Israa'iil ka soo tixraacday sanadii 2023 isagoo ku sugan Sweden kadib markii la ogaaday in uu daawaday ama si u galay akoon xayisiis oo Israa'iil ay abuurtay waxaa la sheegay in markaas uu askari ka tirsan sirdoonka Mossad kadib markii 2 sano lagu soo tababaray 6 dal oo Yurub ah iyo magaalada Tel Aviv ka hor inta aan dib loogu dirin Iran si uu howlgal ugu fuliyo aas qaran ayaa maanta ka dhacay Tehran oo loo sameeyay madaxii hore ee amniga qaranka Iran Ali Larijani iyo Soleimani oo ah hogaamiyay ciidanka Basijida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasnim News Agency oo xiriir la leh ciidanka kacaanka Iran ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa ku dhawaaqay inay fuliyeen howlgal ay ku beegsadeen 100 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Israa'iil si ay ugu jawaabaan weerarkii shalay lagu dilay madaxii hore ee golaha amniga qaranka ee Ali Larijani iyo dadkii la dilay oo uu kamid ahaa wiil uu dhalay Ali Larijani war-saxaafadeedka ciidanka ilaalada kacaanka oo ay ka soo xigatay wakaaladda wararka ee Anadolu ayaa lagu sheegay in howlgalkan oo saaka dhacay loo adeegsaday gantaalo ay kamid yihiin Qatar oo leh qaraxyo badan oo awood iyadoo warbixinta lagu sheegay in weerarada tan iyo saaka dhacay ee ka dhacay gudaha Israa'iil lagu dilay 230 qof halka Israa'iil ay xaqiijisay dhimashada kaliya 2 qof dhinaca kale weerarada Iran oo u muuqdo kuwa sare loo qaaday ayaa saameyn ku yeeshay adeegyada tareenada ee dadweynaha kadib markii gantaalada Iran ay maanta ku dhaceen xarunta dhexe ee tareenada ee Tel Aviv halka oo burbur uu ka dhacay sida uu wariyay telefishinka Israa'iil ka soo baxa ee Janaan 12